توشو لا يفاق جرا يدلين والله إنا كايلين لما دقيقة كدي من دور ميدي انت فريستي لا أصحابي رالي هذا روحا وجهلي روحا وإذا بدروا ورابو كبدا بهد أو كبدا عريفي اللي يرادو مصلحة قبو مقعيد حوها عريفي وركبدا عريفي اللي يرادو مصلحة أو قبو نينك اللي يرادو عطوش ورنينك وكبدا هلقبت وهي دقاقضي وهي سعانيسا gabadha ugu buuran baraha bulshada war ilaahay ugu dhaari fiiri waxa soo dhan xasan tooba ka dambeey waa nin musiiba diriishadu intuu isku qariyo u leeyahay canto baasha kala kici atosh baasha kala kici war xasan tooba ilaahay ka cabso war atosh dhaqan xumada uu baraha bulshada ku haayo maxaa kamida maalin hore gabar muslimadu ka waalay markaasuu leeyahay baraha bulshada gabadha ugu buuran way socotaa way dhaqaaqday waraasho xumadiisa fiir ilaahay nigu dhaari ninka angi maxaa la yiraahdaa durdur media markay hoos u dhacdaba nin balaaya oo dhalinyara oo umada diintooda iyo dhaqankooda duulaan ku ah ay la yiraahdo catoosh ay musiiba ayaa wuxuu sameeyaa been iyo argagax dadka laga aflagaadeeyo ee afxumada iyo anshaxumada iyo dhaqan xumada ay ka socoto dadka leegta u saarayo ogaada inaad qayb ka tihiin waxaa waajib ah hadaa tahay muslim dhab ah inaad tiraadid waxaan kaala laabtay taageeristii aan ku taageerayay raali ku noqon maayo dembigaaga inaan kula qaybsado nabaday boqol kun oo qofood haday ku xirneed ziraha ka soo bilaaw waa dad muslim hadaatihiin waaye anu warkaygu waa cadyahay durdur media markay hoos u dhacdaba nin balaaya oo dhalinyara oo umada diintooda iyo dhaqankooda duulaan ku ah ay la yiraahdo catoosh ay musiiba ayaa wuxuu sameeyaa been iyo argagax war ilaahay nigu dhaariye faamilka maanta dadkii dhisay may hadlaan waraawa dadkii lacagaha ugu deeqay waraawa dadkii laga magacaaway media war ma la soo xiriirtaan oo war ummadan iyo diinta iyo dhaqanka u ilaali annaka dad muslimaan nahay waan ku taageernay walaalow guri baan ku dhisnay walaalow ummadda diinta iyo dhaqanka u ilaali dhaha bani aadamku markuu wax ku siiyo warkaagu waa maqlaya moogta runta raba inaan nin sheego aniga ruuxa wax itaro markuu isoo waco waxaan diyaar u ahay inaan dhageysto Soomaalida raba inaan runta nin sheego ha sheekh soo dhawow adha maxaa yeelo garaw u siiyay war catoosh dhaqan xumada uu baraha bulshada ku haayo maxaa kamida maalin hore gabar muslimadu ka waalay markaasuu leeyahay baraha bulshada gabadha ugu buuran way socotaa way dhaqaaqday waraasho xumadiisa fiir ilaahay nigu dhaari ninka ilaahay nigu dhaari fiiriya wadaadka hadlaay ma aragteen war aniga waxaan rabaa inaad diinta iyo dhaqanka ilaashataan aan rabaa wax kale niga ma rabo wallahi thumma wallahi inaan shilin niga rabin shilin niga ma rabo laakiin waxaan rabaa bulsho muslima oo sidii Allah rabbul alamin amray inay u noolaataan doonaya war dhaqankiina yaa lagu soo duulay war diintiina yaa lagu soo duulay wadankan gacmo fara badan baa ku soo duulay way dhaqaaqday way soconaysaa gabadha ugu buuran baraha bulshada war ilaahay nigu dhaari fiiri yaa yiri kiilwaadkeedii iyo cayilkeeda sheegayay waxa soo dhan xasan tooba ka dambeey waa nin musiiba diriishadu intuu isku qariyo u leeyahay canto baasha kala kici atosh baasha kala kici war xasan tooba ilaahay ka cabso warsaan xoolo looma raadiyo magacna looma raadiyo illa kaftama shariicadu ma ogashay ha anigu dadka waa la kaftama waa la ciyaara soo ma jeed inaad xaaskaaga caruurtaada dadka baahida gaarka qabo inaad meel qurux badan aad tagtaan ya ama dayniile ama daarusalaam oo kale ee aad ilmahaaga iyo xaaskaaga waqti la qaadato shariicadu way ogoshahay
nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadu la ciyaari jiray. xadiiska tirmidi iyo musnad axmed aa soo saaray. abi hurayra warinay can abi hurayrata qaala saxaabada nabiga maxay dhaheen sal alay slam qaaluu yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow suubanow sala allahu calayhi wasalam innaka tudaacibuna nebi allow waa adigaa nala ciyaaraya ya nebi allow waa adigaa nala ciyaaraya ee nala kaftamaayo. muxuu yidhi qaala innii laa aquulu ilaa xaqan anigu odhan maayuu yidhi kelimad xaqa waxaan ahayn. hatooshow leefaan ku jiraa ii dilin wallahi inana kaa yeelin. 2 daqiiqo kadibna durdur midii inta fadhiisatay leedahay asxaabay raalli ahaada war waxaan waa jahli war waxaan waa edeb daro war aaba gabadha aabaheed aaw gabadha cariifay la yidhaahdo maslax qabo magaceeda wuxuu ahay cariifay war gabadha cariifay la yidhaahdo maslax oo qabo ninka la yidhaahdo catoosh war ninkaa gabadha ha la qabto war cariifay ummadda ha laga qabto. durdur miidiya waxyaabahay bulshada qaladka ay ka galeen rabaa inaan ii tiriyo maanta. haweenka soomaaliyeed ee baraha bulshada ku jiro ay diinta islaamka jecela rabaa inay kasoo hadlaan. yaa durdur miidiya yaa ugu horeeyey nin raga inuu 7 digo ama 3 uu digo. 22 sano ayaan reer leeyahay. ina xaaji ibraahim cali wehliye ayaa waxay dhihi jirtay meel heblaan aadi 3aan rabaa 7 laysoo digay lacagaan rabaa weligay maanan arag nin digaayo 7 weligay nin 7 digaayo marag. durdur miidiya waxayna bareen ma maqlay sheekh waxaa dhacday durdur miidiya gabadhii aabbaheed oo ducadii loo duceynayo joogo ayay horta waxay ku qabteen camero. waxaan rabaa xasan toob dhaqanka ummadda soomaaliyeed oo uu gafaa rabaa inaan midna iigu tilmaamo. wuxuu ihi adeer cuntada ka waran waa qodobka koowaad waaye. qaybta labaad wuxuu xasan toob sameeyey 7 in la digo oo nin raga inta codbaahayey u dhiibay oo jidka Maka al-Mukarrama inta fadhiistay oo mar uu meel u booda asuu leeyahay 7 mas magaciisa wuxuu ahay catoosh musiibo way mar walba iga dunyahay catoosh 7diisa soo dhow yey ku dhaafin soo jeed ya. qaybta saddexaad oo xasan toob dhaqanka ummadda uu kula tumta waxaa ka mid ah gabar 7 ku jirto oo habeen iyo maalin meel taagan yaarka. war dhaqan aan leenahay Soomaaliyeey yaa arkay ninka la yiraahdo catoosh iyo cariifay ka hor yaa arkay haleekeeno meelay ka dhacday. gabar la leeyahay 7 ku jirtaa ee habeen iyo maalin maqaayad taagan ee meelaha cosmetics-yada iyo shopping-ka ka muuqato catoosh ka hor iyo cariifay ka hor lama arag. durdur miidiya dhaqanka ummadda ay duulaan ku yihiin. waxyaabaha ay tabiyaan inta ugu badan waa wax diinta islaamka ka hor imaanaya. catoosh arooskiisii 7 inay aheedaan jeclahay lay soxo hadday xusuustii qiyaanto. gabadhii arooska madaxa ka ahayd waxay tiri gabdhaha Soomaaliyeed ee arooska imaanaya waa inay isu soo qaawiyaan. anuu waa yeelan ahay muslima been ma sheego ficiltankana ma aqaan waxay waa itusiye itaabsi shantaaya la yiraahdaa. gabadha waxay tiri qarash baana galay gabadhii rabto inay jalaabiib ku timaado 7 yay noo imaanin. xasan toob warkaas kama tabatigin garabkuu ka fadhay shib buu yidhi diinuuna shuqul ku lahayn moogta. war xasan toob ummadda diintooda u ilaali. war baraha bulshada magac ka raadi oo xoolo ka sameey laakiin walaalo ummadda diinta iyo dhaqanka loo ilaaliyo. war ummadda diinta iyo dhaqanka loo ilaaliyo.
durdur media ummadda duulaan bay ku tahay laba shay oo muhiimana duulaanay ku tahay diinta islaamka iyo dhaqanka duulaanay ku tahay durdur media anshaxumada ka socoto wax loo dul qaadan kara maaha anu youtuber mihi moogtahay waxaan ahay nin muslima oo daaciya hawshii nabi muxamed sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisii aan rabaa inaan ummadda u qabto cidna kaga heebaysan maayo saddex daqiiqo kadib in ummadda inta la hor fadhiisto ummadda la argagixiyo ummadda in la argagixiyo ma banaan tahay ma banaana kelimadda noogu dambaysa